sirdoonka dalka Shiinuhu waa mid ka mid ah hay'adaha sirdoon ee caalamiga waana sirdoonka balaayiinka dollar sanad walba ku bixiya sidii ay ugu dhici lahaayeen ee u jabsan lahaayeen macluumaadka ku saabsan hal abuurnimada tiknoolajiyadda casriga waana sirdoonka tobanaanka kun ee adeegayaashii u shaqeeyaan waana sirdoonka basaasida la daba taagan Mareykanka iyo Midowga Yurub si ay uga helaan xogaha iyo macluumaadka ku saabsan hadba tiknoolajiyadda cusub waana sirdoonka dhexgala shirkadaha shisheeye dabeetana xogtooda farsamo soo basaasa ee adeegsada soona saara wax soo saar koodi la mid ah dabeetana suuqyada baayac mushtar kula tartama oo kaga badiya kana dhiga quwadihii tiknoolajiyadeed ee waaweynaa kuwo iyaga macmiil u ah oo badeecadaha Shiinaha soo doonta waana sirdoonka dalka Shiinaha oo qofka xubinta ka ahi aanu xitaa isu sheegi karin saaxiibadiisa qaraabadiisa iyo xitaa qoyskiisa sida caruurtiisa iyo xaaskiisa barnaamijkeena xogta daahsoon waxaynu daaha kaga qaadinaa sirdoonka dalka Shiinaha iyo sida dawladdaasi ay shacabkii wadanka guud ahaantiiba uga dhigtay basaasiin xirfadyahanna ku soo dhawaada barnaamijka taariikhda cusub ee sirdoonka dalka Shiinuhu waxay soo bilaabatay 20-meeyadii qarnigii dhaafay waxaana aasaasay sarkaal lagu magacaabi jiray Shan Qianshi waana sarkaalkii mideeyay dhulweynaha Shiinaha ahaana madaxweynihii u horeeyay ee wadankaasi sanadkii 1928 laakiin qaab dhismeedka uu haatan u taagan yahay sirdoonka Shiinuhu waxa uu ahaa mid la sameeyay cahdigii 40-meeyadii ee isla qarnigaasi isagoo shaqadiisu xilligaa ku koobnayd dalka gudihiisa ka hor intii aan la samaynin sirdoonka qaabilsan dalka dibaddiisa sanadihii 50-meeyadii iyadoo sanadihii 60-meeyadii ee xigeenna uu ahaa cahdigii dahabiga ahaa ee sirdoonka Shiinaha waana xilligii dowladda lagu soo daray wasaaradda amniga oo isu bedeshay hay'adda sirdoon ee ugu weyn ee dalkaasi leeyahay taasoo ay hoos tagaan dhammaan hay'adaha ammaanka dalkaasi marka laga reebo militariga dalku leeyahay waana xilligii laga gudbay inay safaaradaha dibaddu kaligood sii ahaadaan dariiqada sirdoon ee dalka dibaddiisa iyagoo basaasiin loo tababaray qaybihii bulshada ee caadiga ah sida ganacsatadii shirkadihii iyo xitaa suxufiyiintii iyo ardaydii iskuulaadka iyo jaamacadaha wasaaradda amniga dalka Shiinaha oo ah hay'adda maamusha howlaha sirdoon ee wadankaasi waxay ku tirsan tahay kooxda basaasiinta ee loo yaqaan Danwe oo ah koox shacabka ku xidha xisbiga hantiwalaaga ee hoggaanka haya ahna xisbiga kaliya ee dalka ka jira waxaana ay kooxdani leedahay qayb u qaabilsan xafidaadda magacyada xubnaheeda iyo macluumaadka qoysaskooda iyo eheladooda iyo waliba aragtiyahooda siyaasadeed basaasiinta hay'adaha sirdoon ee Shiinuhu waxay diyaar u yihiin inay fuliyaan waajibaad kasta oo loo xilsaaro hawshaana waxay u gudanayaan iyagoo wakiil kaga ah qarankooda wasaaradda amniga oo iyadu qorato oo tababarto wakiillo farsamadooda basaasnimo sareyso ayaa waxa suuragal ah inay tobaneeyo basaas u wada xil saarto hal shaqo oo isku mid ah iyagoo aan sugay taasoo ujeedadeedu tahay in la soo helo macluumaadka ugu badan ee suuragalka ah sidoo kalena waa dariiqo lagu ogaanayo daacadnimada basaasiintaasi iyadoo xogaha ay keenaan la kala shaandhaynayo si looga gaadho natiijo xaqiiqada u dhow waxaana halkaa sirdoonka gaarka ah ee ciidamada oo iyagu u xil saaran ururinta macluumaadka farsamo iyo qalab ee dalalka shisheeye si loo helo dariiqooyin lagu xoojin karo militariga dalka Shiinaha halka sidoo kalena waajibaadkooda ay ka mid tahay la socodka xuduudaha wadanka iyagoo ka faa'iideysanaya adeegayaashooda ku sugan wadamada Vietnam Taiwan Macau iyo Hong Kong lafteeda waana sirdoonka militariga Shiinaha oo soo dhameeyay heshiisyada hubka Shiinaha lagaga iibiyo dalalka caalamka xilliga oo ay iska dhigayaan dilaalin ka howlgala suuqyada hubka ee caalamiga waana sirdoonka ciidamada oo shaqo geliya diblomaasiyiinta iyo basaasiinta shisheeyaha ee iyaga u adeegaya arrimaha oo dhan marka laga tago halkaa waxa ah xafiiska 7aad ee wasaaradda amniga gudaha oo qaabilsan maamulka howlgallada sirdoon ee dhanka elektaroonikada cyberneska waxaana ka howlgala kubanaan burcad elektaroonikada ee dhanka internetka oo sita magaca kalluunkii moolka badda
waajibaadkooduna waxa uu yahay ururinta macluumaadka lagama maarmaanka iyo la socodka baraha xidhiidhka bulshada, iyagoo tashuush iyo been abuur ku dhex faafinaya dalalka shisheeye ee ay ku sugan yihiin. inkastoo haddaba ay qaybaha sirdoon ee Shiinahu kala duwan yihiin, waajibaadkooduna isku mid ahayn, ayaa haddana arrinta la yaabka leh waxay tahay in 70% macluumaadka basaasnimo ee Shiinuhu helaa ay ka yimaadaan hay-ado aan sirdoonka rasmiga ah ee waddanka ahayn, sida jaamacadaha, hay-adaha warbaahinta iyo shirkadaha badankooda, kuwaasoo ururinaya macluumaadka ugu badan ee ay heli karaan si ay natiijo wax ku ool ah uga dhex saaraan, iyadoo tan iyo sanadkii 2000 ay shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa guud ee dowladdu soo ururiyeen 48% macluumaadkii sirdoon ee lasoo duubay. qiyaasta oo ah mid 7% ka sarreysa xaddiga macluumaadka ee tan iyo sanadka 2000 ay soo ururiyeen wasaaradda amniga iyo sirdoonka gaarka oo ah militarigu. Shiinuhu waxay leeyihiin wakaaladda difaaca ee u qaabilsan dhanka culunta iyo farsamada tiknoolajiyadda iyo warshadeynta, waana wakaalad u soo qaabeeg wakaaladda mashaariicda baaritaanada difaaca horumarsan ee darba ee dalka Mareykanka. hay-ad kasta oo dowladeed oo Shiinuhu leeyahayna waxa ay qayb ku leedahay howlaha basaasnimo ee lagu soo ururinayo macluumaadka, sida wakaaladda wararka ee dowladda iyo xitaa wasaaradda tacliinta oo ardayda qaarkood u tababarta howlaha ammaanka. shuruudaha looga baahan yahay muwaadinka Shiinayska si uu u noqdo howlwadeen sirdoon oo rasmi ah waxaa ka mid ah inuu haysto shahaado jaamacadeed, dalka dibaddiisana aanu hore safar ugu tegin, kuna hadli karo ugu yaraan 2 luqadood, waana inuu yahay qof daacad u ah xisbiga hantiwadaagga iyo waddanka. waxaana dhisan xafiiska 9aad ee wasaaradda amniga gudaha oo ah xafiis u xilsaaran inay ka hortagaan cid kasta oo isku dayeysa inay ka goostaan shaqada hay-adda sirdoonka ee waddankaasi. sarkaal kasta oo sirdoon oo Shiinaysa waxaa hoos yimaada basaasiin ku kala filaqsan daafaha caalamka, kuwaasoo kumanaan gaari kara, iyadoo warbixin ay hore u shaacisay shabakadda Wikileaks ay sheegaysay in xubnaha sirdoonka Shiinaha ee ku sugan dalka Mareykanka oo kaliya ay tiradoodu gaarayso 100,000 oo shakhsiyaad iyo shirkado isugu jira. waana macluumaadka ay suuragalka ku tilmaantay hay-adda dambi baarista dalka Mareykanka ee FBI, iyadoo ay ilaa iyo 3,000 oo shirkadood oo Shiinaysa oo ku sugan dalka Mareykanka lagu tuhunsan yahay inay ku lug leeyihiin howlo dhanka basaasida. Shiinuhuna waxay aaminsan yihiin in dagaalka ugu weyn yahay ka ururinta macluumaadka. cidda hesha macluumaadka ugu badanna ay yeelanayso gacan sarreynta, waana macluumaadka qiimo kasta oo ku kacaba ay uga faa'iideysanayaan horumarinta cududooda militari iyo habsami u socodka siyaasadooda baayac mushtar. waana Shiinaha oo malaayiin shacabkiisa ka tirsan u kala diray wadamada dibadda si ay u ururiyaan macluumaadka loo baahan yahay, iyagoo daah ay ku gabadaan ka dhiganaya howlwadeenno la socda shirkadaha Shiinuhu leeyahay ee wadamada ka howlgala. waxaana ay Shiinuhu dalal badan oo caalamka u direen shaqaale Shiinaysa oo ka tiro badan militariga waddankaasi leeyahay. waana Shiinaha oo iyagoo ka faa'iideysanaya shirkadahooda dhanka tiknoolajiyadda ay suuragal u tahay inay la socdaan xidhiidhada isgaarsiineed ee ay sameynayaan malaayiin dad ah maalin walba. waana Shiinaha oo balaayiin dollar ku maalgashaday shirkadaha tiknoolajiyadda ee wadamada kale leeyihiin si ay xog uga helaan farsamada iyo agabka tiknoolajiyadeed ee shirkadahaasi. waana Shiinaha oo doonaya inay sanadka 2025 dhammaan badeecadaha suuqyada caalamka yaalla ay ku dul qornaato Made in China. taasina waa sababaha ay u howlgelinayso burcadeeda internetka ee cyberneska loo yaqaano, kuwaasoo ku fogan inay xaqiijiyaan helitaanka hindisaha iyo halabuurka tiknoolajiyadeed ee ku soo kordha caalamka. waxaana Shiinuhu noqdeen sanadkii 2018 dalkii sameeyay howlgalladii ugu badnaa ee burcadnimada elektaroonikada ah, iyagoo bartilmaameedsaday dhinacyada farsamada dawooyinka iyo macaadinta ee dalkaasi Mareykanka, halka sidoo kalena ay sirdoonka Shiinuhu agab xabadda kiniinka leeg u adeegsadeen si ay u basaasaan shirkadda Supermicro oo ah shirkadda ugu weyn ee soo saarta qalabka motherboardka ee qaarkii kombiyuutarada qaybwanka yahay. dabeetana ay Shiinuhu soo saareen nooc la mid ah motherboardkii ay shirkadda Mareykanka ahi soo saari jirtay. Mareykankuna ma aha dalka kaliya ee sirdoonka Shiinuhu ku jihaysan yihiin, laakiin waxaa halkaa iyaguna dalalka reer Yurub oo ay Shiinuhu ahmiyaddeeda siinayaan. waxayna ahayd dhammaadkii 2010 markii ay shirkadda Renault ee dalka Faransiisku shaqada ka joojisay 3 ka mid ah shaqaalaheedii ka howlgelayay barnaamijkeedii horumarsanaa ee farsamaynta gawaarida ku shaqeysa elektriga,
kuwaasoo lagu eedeeyey inay asraarta barnaamijkeedan u gudbinayeen dalka Shiinaha lacaga badanna ay ka heleen shirkado Shiinaysa waana hawshii xilligaa loo aqoonsaday inay ahayd maalgelintii ugu badnayd ee muddo dheer Shiinuhu gelinayeen howlgal basaasnimo oo gaara sanadihii u dhaxeeyay 2015 ilaa 2017 boqolkiiba 15 shirkadaha laga leeyahay wadamada reer Yurub waxay soo bandhigeen inay la kulmeen xatooyo lagu sameeyay dukumentiyo shirkadahaasi ruuxa dalalka reer Yurubna sanad walba waxyeelada ka dhalata basaasida lagu sameeyo waxay ku khasaaraan adduun gaaraya 60 bilyan oo lacagta Yuroda halka dawladda Mareykankuna ay 320 bilyan oo dollar sanad walba ku weydo falalka lagu minguuriyo xuquuqdii shirkadaheeda ee lahaanshaha gaarka ah ee hal-abuurka iyo hindisaha farsamo iyo wax soo saar iyadoo warbixinta golaha Koongareesku soo saareen lagu cadeeyay in xaditaanka fikradihii hal-abuur ee shirkadaha Mareykanku la kulmeen sanadihii u dambeeyay inay dhalisay shaqo la'aan ku dhacday 2 milyan oo dadweynaha Mareykanka ka mid ah Shiinuhuna marka laga tago qaabka uu sardoonka uga faa'iideysanayo dhinacyada baayac mushtarka iyo militariga waxa kale oo uu doonayaa inuu ugu dambeynta noqdo dal ishortaaga haymanada reer galbeedka ee caalamka isagoo xaqiijinta himiladana u adeegsanaya malaayiinka basaasiinta ah ee uu haysto ama dul dog lahad